السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج maanta waa barnaamij muhiim ah weyn. Maanta inta xogaha hadlaynaa dhibaato ugu soo badanaysa dalka Soomaaliya oo dadweynaha farakul ku haysa. Marka dhibaatadaas waxa weeye waa dhibaatada faqrinimo oo ay keentay dawlad la'aanta meesha ka jirta. Marka taas waxa weeye waa dhibaato aad iyo aad u weyn weeye. Sidaas loogama hadlo oo arrin taabu ah weeye. marka arrintan waxa weeye waxa maqli jiray la dhaho gaal jabkiisu qarsada marka maanta xaaladii Soomaaliya timaad maanta Soomaaliya jabkooda qarsanaysa marka maanta Soomaaliya si ay u tihiin dawladda fara badan baa ka jira marka kullu dawlad ku sheegayo marka dawlad baa la sheegtaa marka adeeg dawladdan lama bixiyo marka dawladaas oo halkaas ugu jiraan kullu u jirtaa inuu nimanka qabqablayaasha ay halkaas ku cunaan lacagta oo canshuurta ay dadka boobaan bas intaas kaliya jirta adeeg dawladda ma bixiyaan marka waxbarasho ma bixiyaan hospitaalo laga helo shaqo abuurid ma sameeyaan ammaankiina kuma filna marka sabab u jiraan ma jirto marka dawlad la'aanta meesha ka jirta dhibaato keentay dhibaatadaas waxa weeye faqrinimo bay dadka ku riday marka dhibaatadaas faqrinimada waxa weeye waxa keentay dawlad la'aanta ka jirta dawladda haday jirto dawladdu waxa weeye mas'uuliyadeedu waxa weeye inay bixin karaan adeeg dawladda adeeg laga helin sabab u jiraan ma jirto marka arrintan oo faqrinimada ku soo badanaysa dalka Soomaaliya report yaal fara badan baa loo qoraa badanaa af Ingiriis baa loo qoraa marka reportyadaas oo dhibaatadaas loo qoray baa inta qaarkood ku arkaynaa marka dhibaatada cabirkeedii baa inta ku arkaynaa report ugu horeeya inta ku arkayna waxa qoray World Bank 2019 soo baxay soo yahay marka report ka warkiisa kaasa marka reportkaas waxa weeye waxay dhaheen boqolkiiba 69% dadweynaha Soomaaliyeed faqrinimo baa ku dhacday oo ma haystaan dad faqri ah weeye marka Soomaaliya maanta waxa weeye wadanka lixaad ee Afrika ugu faqrisan baa haddana waxa weeye dadkii kala bar waxa weeye waxa dib ku ah inay gataan waxay ku noolaan lahayn baa dib ku ah marka taas waxa weeye waxa keentay waa dawlad la'aanta meesha ka jirta marka taas waxa weeye waxay meesha dawlad sheegta meesha lagu fashilmay marka waxa weeye maamul xumo meesha ka jirta kharashka dadweynaha baa bixinaya marka report kale ay qoreen waxa dawlad ku sheega oo xamar joogan soo yahay sanadkii soo baxay marka saanta ugu jiraan waxa la dhahay kala bar dadweynaha Soomaaliyeed ama boqolkiiba 54 faqrinimo baa ku dhacday balda boqolkiiba 20 waxa la dhahay waxa ku dhacday balda extreme poverty ama dhibaatada la dhaho faqrinimada xad dhaafka marka labada number marka la isku daro marka 75% bay maraysaa dhibaatadaas oo dadweynaha waa dhibaato soo ku dhacday dadweynaha Soomaaliyeed si u badan yihiin marka reportka hadaa u jeednay boqolkiiba 69 bay ahayd afar sano ka bacdi boqolkiiba 75 bay maraysaa marka dhibaatada halkaas waxa ka arkaynaa inay tahay dhibaato soo badanaysa inay tahay soo weynaanaysa marka dhibaatooyinka waxa weeye meelooyinka wadanka qaarkiisa waxa weeye meelana ku badan tahay meelana ku yar tahay oo isla reportka xaqiijinaya marka inta u jeedaan meesha oo dadka ugu faqri yar ee ku yirihiin waxa weeye waa awdal weeye boqolkiiba 40 camal kale waa dadka faqri ah meel ku badan tahay waxa weeye waa Bakool waa Hiiraan waxa weeye waa Juba iyo Shabeellada Hoose iyo Mudug marka kulli marka la isku daro faqrinimada boqolkiiba 54 dadweynaha Soomaaliyeed bay ku dhacday marka dhibaatadan waa dhibaato soo badanaysa way dhibaatada faqrinimada waa arrin wax ka qabad baahan way marka maanta Soomaaliya dadweynaha kala war waxa weeye waxay ku nool yihiin macaawino oo macaawanada wadanka la keenay kama maarmaan qaarana waxa weeye dadkii dhalinyaro waliba gaar ahaan marka aysan wadanka jirin waxa shaqo ama waxbarasho ka jirin waxa khasab ku noqonaysa inay taariibaan dhibaatadan waa dhibaato soo far badanaysa way marka arrintan waa arrin waxa weeye soo badanaysa way waa arrin wax ka qabad u baahan way waa arrin u baahan isbedel siyaasadeed iyo isbedel dawladeed inuu yimaado marka waxa weeye arrintan waxa weeye odayaasha
iyo shiikhyada iyo dadka kaleba inay ka qayliyaan bay ahayd laakiinse lama sameeyo marka arrintan faqrinimada way soo badanaysaa haddii oo aan wax laga qaban Soomaa oo aan la sii dabagelin oo aan xalkeeda helin waxa weeye dhibaatada waxa weeye foolxum arrimo foolxum bay keenaysaa arrimo foolxum keenaysaa waxa weeye waxyaalo oo dhaqan xun oo wadamada kale lagu arko bacaado wadanka noqonaysa marka ka soo qaado kale Thailand oo kale waxa weeye sex industry bay furan marka dadkii faqri baa ku dhacay marka sida ay ku badbaadaan waxa korkooda ay gatay marka caruur iyo dumar baa la iibinaya marka dibadda baa looga soo safraa loo soo halkaas oo Thailand caan bay ku tahay marka saas kala Soomaaliya ka iman kartaa haddii aan dhibaato la qaban haddana sidoo kale waxa weeye wadamada organ harvesting wax loo baa iman kartaa dadka soo qaad India kale dadka faqrinimada marka badato kale keliyahooda gataan ama beerkooda marka taas waxa weeye waxa keentay gaajo laga carayo marka dhibaatadaas kale baa caado ka noqon doonto Soomaaliya haddii aan faqrinimada maanta wadanka jirta haddii wax laga qaban marka arrintan waa arrin aad iyo aad u foolxun weeye oo waxa weeye dhaqankii Soomaaliyeed bedelaysa haddii wax laga qaban marka waxaa loo baahan yahay inay dadweynihii xisaabtamaan oo qayliyaan oo waxaan dawlad ku sheegaa la iska ciriyo oo dawlad run la keensado oo waliba gaar ahaan odayaasha iyo wadaadada iyo dadka oo cilmiga leh inay qayliyaan oo isbedel siyaasadeed loo ololeeyo markaas markii loo ololeeyo oo dadka kacaan markaas dawlad run ay imaanaysa oo dadkii u adeegaysa laakiin haddii maanta la iska aamuso oo la iska fadhiyo oo nimankan odayaasha oo tuugada ah laga gaabsado oo afka la xirto qabyaalad darteeda waxa weeye dadkii baa faqri leynaysa dadkii waxa weeye abaar iyo faqri baa eberka siinaysa marka taas waxa weeye waa arrin aad iyo aad u foolxun weeye marka daawadayaal barnaamijka halkaas buu ka ekaa marka waxaan dhahayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo saarigta dambe